السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشي قاليقاه وقti kasta idin tahay wanaagsan oo wacan waa mar kale iyo isku soo noqosho wanaagsan waxaan idin hayaa xogo aad iyo aad u muhiimsan oo aan raba halkan inaan idinku soo gudbiyo daqiiqadaha halkan ku jiri doona waxaan kugu soo gudbin doonaa xogaha aad kor ku soo aragtay sida ciwaanka kor ku soo aragtay iyo sidoo kale waxaan doonayaa inaan halkan kugu soo gudbiyo xogo kasii muhiimsan oo aan rabno halka inaan ku falanqeyn haddii oo alid insha Allah waxaan doonaynaa inaad fadlan like gareyso haddii oo video aan kusoo gaaro si share gareyso aad ku share gareysaan gruubyada oo aad share gareysaan oo aad la wadaagtaan dadkiina kaleeto si aan xogta oo aan u guda galno halkan idinkugu soo gudbino waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa xogo intaan ka badan waliba aan ku falanqeyn doono waxa markaasi taagan ama xaaladda saxda ah ee dhabta ah in laga hadlano u baahan ugana baahan in geesnimo ama si wanaagsan in looga hadlo ayaan rabaa halkan inaan kugu soo gudbiyo waxaan jeclahay xogta sida ay ku sugan tahay inaan halkan kugu soo gudbiyo adigana waxaan kaa doonayaa inaad sii share gareyso oo aad la wadaagto saaxiibada kaleeto marka fadlan sii share gareeya barnaamijkeena si aan u guda galno dhammaantiin aad baan idinkugu mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad ugu xiran tihiin dhammaantiina waxaan gudagali doonaa waxay tahay waxaan jeclaa inaan halkan kugu soo gudbiyo xogo muhiim ah oo aad rabo inaan halkan kugu soo gudbiyo adigana aan jeclaa inaad ogaato waxa saxda ah ee markaasi taagan waxaan rabaa inaan halkan kugu soo gudbiyo 4 qodob oo muhiim ah in laga hadlo ayaan jeclaa halkan inaan kugu soo gudbiyo qodobka ugu horeeya wuxuu yahay mucaaradka habka ay doorashada u socoto ay diidan yihiin mise macnaha habka ay doorashada u socoto miyay diidan yihiin mise maamulka doorashada ayay doonayaan waa qodobka ugu horeeya aan rabo inaan ka hadlo qodobka labaad ee aan doonaya inaan ka hadlo waxay tahay Shariif oo meel cidla ka istaagay isagoo iyo ayna Xasan Cali Qeere oo isku dhinac ah ayaa markaan wixii kaga bixeen ayna raggii mucaaradka ahay balse doonayo in doorashada dib loo dhigo doonayo mudukirnin dadban iyagoo damac siyaasadeed halkaas ka lah ayna qodobka saddexaad ee aan doonaa halkaan kugu soo gudbiyo waxay tahay koox gaar ah oo doonayso in doorashada la hakiyo iyagoo macnaha qorshahoodu yahay siyaasad gurcan inay halkaasi ka suubiyaan qodobka ugu dambeeya aan rabo inaan halkan ka hadlo waxay tahay damaca lagu doonayo dhisida golaha ay doonayaan midowga musharaxiinta qaarkood ma aha dhammaantooda muxuu yahay halkan ayaan rabaa inaan halkan kugu soo gudbiyo fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad barnaamijka sii share gareyso oo aad la gareyso hadduu ku soo gaaro si xogteena u gaarto dad intaan in ka badan haddii oo alla idin insha Allah waxaad ciwaanka kore ku soo aragtay mucaaradka oo u kala jabay laba garab maxay tahay sababta laba waxay tahay waa kuma cidda doorashada macna doorasho diidka ah balse doonayso muddo kordhin dadban waa kuma ciddaasi waa su'aasha ugu baahan ee aan raba inaan ka jawaabo si maskaxiyan ah iyo xog sugan inaan halkan kugu soo gudbiyo oo arrinkaasi ku saabsan waliba aan raba inaan kugu gudbiyo arrinka ku haboon ama siyaasad ahaan hadalka ku haboon horta mucaaradka waxay u kala jabeen laba garab ayay u kala jabeen garab doonayo in ay doorasho dhacdo iyo garab doonayo in aysan doorasho dhicino doonayo in ay isdiyaar gareeyaan si ay u helaan kuraasta xildhibaanada soo baxayso iyo kuwii hore u soo baxay qaab walba ay ku doonayaan inay helaan laba kuwa doonaya inay doorashada dhacdo ayaa waxay qabaan kalsooni ah in ay doorashadan ka qayb gali karaan waliba sida waqtiga ku haboona doorashada inay ku dhacdo ayay doonayaan waa dadka raba in ay doorashada dhacdo dadka aan rabin in doorashada dhacdane hadda waxay ku jiraan waqti gabaabsi ah maadaama ay ku jiraan waqti gabaabsi ahne hadda gabalkoodii ayaa dhacay way is og yihiin balse hadda macnaha waa dareemaysaa waa mayal adeeg wax la yiraahdo ayay muujinayaan laakiin qalbi ahaan waa dad u dabacsan qalbi ahaan waa dad qalbiga ka jabay oo aan rabin inay doorashada dhacdo dadka doonaya marka doorashada inay dhacdo waa laba qofood oo kaliya ayaa doonaya waa Shariif Sheekh Axmed oo og halka dantiisa ay ku jirto sidoo kale Xasan Cali Qeere waa qof og halka dantiisa isagana ay ku jirto tusaale raba inaan kugu soo celiyo waxa xasuustaa xilliga ee dhibaatada dhacaysa dalka waxa dagaalka fuliye ama hubka qaatay waxay ahaayeen waa ragga macnaha ugu horeeya Xasan Sheekh Maxamuud
oo ku xugo cabdiraxmaan cabdishakuur. laakiin ma ogsoontahay oo ma la socotaa hadda labadaa nin ee goonigii kaga baxay inay ahaayeen raggii kaga siibtay markii dalka ay ka dhaceysay xabadda. markaasi waxay doonayeen magac u gaar ah in ay gooni uga baxdo, sida hadda raggaani mucaaradka ah ee doonaya in doorashada la hakiyo, boobka ay ku sheegayaan doorashadana inay ayaga maamulaan si iyaga wax u helaan kaliya waa waxa ay ku doonayaan doorashada ha la hakiyo, warqadaha badan ay kusoo saarayaan. okay, barnaamijkii markaan usoo gudagalno waxa ay tahay mucaaradka macnaha habka ay doorashada u socoto miyay diidan yihiin mise waxay doonayaan maamulka doorashada in ay qayb ka qaataan? waa su-aasha u baahan in sida saxda lagaaga jawaabo. kow, horta waxa ay dalbadeen macnaha waxa ay dalbadeen oo u dhiibteen Cumar Cabdirashiid ayaa waxa ay tahay inay qayb ka noqdaan doorashada socoto si filla Soomaaliya qayb uga siiso maamulka doorashada socoto, maadaama doorashadaani ay gacanta u gashay maamul goboleedyada. marka mucaaradkani awood maanta uma lahan in ay la hadlaan maamul goboleed, awood uma lahan in doorashada ay fargeliyaan. waxay mar kasta ay doonayaan waxay tahay halka ay dantooda ka arkaan ay mar walba culays ka saaraan. waa midda ugu muhiimsan ee qof walba inuu ogaaday u baahanta ayaa halkaas ah. marka Cumar Cabdirashiid ayay fariin u dhiibteen oo ah niyahow at least xitaa qayb nooga keen doorashadaani si anagana qayb aan uga qaadano oo aan kuraasta qaar aan ka heli karno. inagoon doorashada gaarin waa inaan doorasho intaan la gaarin ka hor waa inaan heli karnaa rag aan ku kalsoonahay oo aan ku hubtagi karno. macnaha waa habka ay doonayaan raggaani mucaaradka ah. okay, maadaama awoodii doorashada ay go'aan gashay maamul goboleedyada, waxay doonayaan inay gacantooda ka soo bixiyaan si iyagana maamulka qayb uga qaataan. waa habka ay doorashada ay ku doonayaan, laakiin ma ahan doorasho diid, ma ahan inay dhaleecinayaan habka doorashada ku socotee. waxay doonayaan waxa ay tahay baashi waa laisla fahmay maamulka doorashada qayb nooga dhiga si inagana maamulkan aan qayb uga noqono. waa habka ay doonayaan iyaga marka. okay, qodobka labaad aan rabo inaan kuu gudagal waxay tahay Shariif iyo Xasan Cali Kheyre ayaan rabo inaan ku dul istaajiyo. cawadan aan kula hadlayo ama waqtigan aan kula hadlayo, Shariif xisbigiisa ayaa waxay la kulmeen Ra'iisul Maxamed Xuseen Rooble, waxayna kala hadleen habka doorashada u socoto in la dardargeliyo doorashada, waliba qaladaadka halka ay taaganta lagu saxo, laakiin doorashada aan la hakin. waa ragga doonayo in ay doorashada dhacdo, waliba isku kalsoon in doorashada habka ay ku socoto ay kaga soo bixi karaan. kalsooni taas ayaa la yiraahdaa. kalsooni waxaa la dhahaa doorashada adigoon gacanta ku haynin inaad ka qayb gali karto. taas kalsooni number 1 waaxid waa. laakiin kalsooni darro waxaa ah inaad doorasho eedeyso, doorashana diyaar aad u ahayn. waa kalsooni darro tii ugu xumeed ee noloshaada soo marto. waa taas waa. marka Shariif waxa uu yaqaanaa halka ay macnaha wuxuu yaqaanaa waa halka dantiisa ay ku jirto ayuu mar kasta aadaa. ma aado halka ay dantiisa ku jirin. haddii uu aadi karo halka ay dantiisa ku jirin, wuxuu raaci lahay ragga aad taqaanid ee mucaaradka ah ee aan doorasho rabin laakiin doonayo in maamulka doorashada qayb looga dhigo. waa at least maamulka doorashada socoto waa in qaybna looga dhigaa. laakiin waxay iloosan yihiin. ani waxaan la yaabaa raggan waxa waaye waxay mar kasta hilmaamaan. waxaa ka mid ah shalay waxay ku doodayeen doorashada gacantiisa laga bixiyo Farmaajo ayay lahaayeen, laakiin maanta waxay doonayaan in doorashadii lagu soo celiyo Farmaajo gacantiisa, iyagana maamulkooda qayb ka qaataan ayay doonayaan. waa macnaha qalbiyan waa habka ay doorashada u doonayaan ayaa sida taa. marka raggan marka aad fiiriso rag doorasho doonaya ma ahan. raggaasi marka aad fiiriso iyo raggan marka aad isbarbar dhigto farqi ayaa u dhaxeeya labadooda oo ah ninna doorashada ayuu doonayaa kalsooni ku qaba xildhibaanada soo bixi doonto, waliba la kasba kara inay tahay xildhibaanka si kastoo u soo baxsado madaxweynaha xilliga markaas taagan waxaa lagu tartamaa waxay tahay xildhibaanka in aad kasba kartid, inaad ballanqaadyo badan u soo bi kartid, inaad wax qabad badan u soo bi kartid ayaa la isdheeriyahay. waxaa la yiri doorada macnaha si kastoo u xaarto macnaha aftirashada ay isdheeriyihiin. si kastoo la isku dagaalamo wax kasta la isku soo biyo waxa la isdheeriyaa waa aftirashada. sidaad ninkan ku soo jiido karto ay mar walba ku xiran tahay. raggaani marka damiir ahaan ama qaab ahaan way u niijibsan yihiin. waxa ay doonayaan waxa waaye waa maamulka doorashada gacanteena loo soo galiyo. okay, marka Shariif
wuxuu si cad u taageersan yahay waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxa kaliya oo doonaya waxay tahay waa inay doorashada dhacdo tusaalaha kugu filnaato booqashadii maanta ugu tageen Shariif Sheekh Axmed xisbigiisa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay ku dhiirigeliyeen habkay doorashada u socoto inay tahay habkii ugu wanaagsaneed laakiin qalad kasta meesha ay taagan tahay lagu saxo kaliya laakiin hore loo wada doorashada laakiin hal mid aan idin sheegaya nidaamkan iyo dhaqankan aad arkaysid habka kaliya looga bixi karo waa in doorasho dalka ay ka dhacdo dhaqanka ama qaabkaani iyo murankan arkaysid meesha kaliya looga badbaadi karo waxa ay tahay waa in ay doorasho dhacdaa madaxweyne sax ah ama waqtigiisa saxda ah oo yimaada doorashadiisana xilkiisa waajibaadkiisa lagu wareejiyo oo uu qabto maamul cusub maamulkiisana hore u sii wato doorashadan murankaas oo dhan ayaa looga gudbi karaa raggan mucaaradka marka waxay doonayaan waxay ka fikirayaan waxa waa 4 sano ee soo socota ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo hogaamin doono maamulka doorashada ayay walwal kaliya ka qabaan okay marka khayra iyo shariif waxay aaminsan yihiin inay heli karaan ayna xildhibaano ama nasiibkooda inay halkaas ka heli karaan calafkooda waxay u qoran hada qof walba kama hor istaagi karo ولا فرماجان كهور يساي كرين روبلان كهور يساي كرين مامول قولدان كهور يساي كرين وحي علف كودا قفنا كما هور يساي كرتو وحي او قرنه هاد الها او قر اديق مدي ذكرتد كما هور يساي كرتد marka ragaani musharaxiinta qaar marka ah fiiriso niyad ahaan waxa kaliya ay doonayaan waxay tahay waa hal in la yiraahdo mucaaradan ahaan jirna oo kaliya dhaqankaas ay wadaan kaliya okay shariif iyo khayre waa dad isku kalsoon aragti ahaan iyo sidoo kale xildhibaan ahaan waa dad isku kalsoon in doorashadan ay ka gaari karaan maamul ama qaabka ugu sare inay doorasho ka gaari karaan okay shariif aan ku soo qabto shariif wuxuu ahay madaxweynihii ku meel gaarka ahay ee doorashadii ka soo gudbiyay dalkan xaaladda aragteen soo gaarsiiyay in dalka doorasho lagu qabto wuxuu sidoo kale ahay nin wadanka markii si la fiiriyo shariif waa nin wax u soo qabta ani ahaan marka aan fiiriyo fikirkayga iyo wax aniga ka arka waa shariif markii la fiiriyo waa nin dalka wax u soo qabtay sidoo kale xasan cali khayr marka aad fiiriso waa nin dalka wax u soo qabtay laakiin se kalsooni waxay isku qabaan inay tahay xildhibaanada in la kasba karo waliba qaabka ugu wanaagsan ay tahay in ballanqaad loo suubiyo ayna casho sharaf loo suubiyo isku keenis ama isku aruuris loo suubiyo isbedel ay ka heli karaan halkaasi dhiiranaan ay u tahay marka in doorashadan ay dhacdana way doonayaan marka ragga qaar marka doorashada aan doonayna waxay raadinayaan kaliya waa magac oo ah siyaasad wuxuu ku jiray magacuu ku raadinayaa oo ah in la yiraahdo mucaarad ayuu ahaa jiray doorashada ayuu ku dartama madaxweynimada qaabkaas ayuu doonayaa qof walba okay marka halkaas marka uu gudbo qodobka saddexaad aan rabaa gudo gal waxay tahay koox gaar ah oo doonayso in ay doorashada la hakiyo iyagoo macnaha ayna ka doonaya calashan qorshahooda oo yahay qorshe siyaasadeed kali inay ka damacsan yihiin okay koox waxa ay tahay waa hadee qaabka anigan kala hadlayo kooxdan gaarka ah oo doonayso magac mucaarada ay wataan magac musharaxiin ay wataan laakiin waxa ay doonayaan waxay tahay qorshe siyaasadeed arin ah ay ka damacsan oo ah inay magac ku suubiyaan barnaamijkaani inay ku raadiyaan sumcad ka duwan sumcada dadka ay raadiyaan waa hadee macnaha dadka qaar marka niyad ahaan u fiiriso iyo aragtida marka isku cabirto waxa ku soo baxay waa qaabkaasi okay dadkan marka doorashada oo macnaha waxay doonayaan waxay tahay waa doorasho oo lagu furo muran ayay u arkaan inay heli karaan ayna xoog ama qadaadiic ku saabsan magacaasi ay ku doonayaan inay ku helaan musharaxnimada calashan waxay ku raadinayaan waxay tahay waa lacag sidoo kale waxay ku raadinayaan waa magac siyaasi ay ku raadinayaan ragana arkayso 24 saac soo saaraya warqadaha ku eedeynaya doorashada habkay u socoto waa ragaani niid ahaan marka fiiriso waa dilayhiin qaab ahaan marka fiiriso diyaar uma aha doorasho inay dhacdo u fiirso dib markaan ku celi 2 bilood ka hor waxa ay ku qeelinayeen ragaani arkayso doorasho hal qabto doorashada ma aragno waqtiga ay dhacayso doorashada ma arko waxay sida u socoto ay ku doodayeen waxay sidoo kale ku doodayeen muddo kordhin ma doonayno laakiin hadda waxay doonayaan muddo kordhin dadbana ay ku doodayaan oo hadda aragtida iyo fikirka waxay aaminsan yihiin ayaan hadda maanta ka dhaxarka ragaani marka ragaani markasta waxay fiiriyaan waxa waay waa qadaadiicda ka soo gali karto ayna siyaasadda ay mar walba ka raadiyaan calasha marka waxay raadinayaan magac ka duwan magac dadka kale ay raadiyaan okay waxa ay doonayaan inay helaan
magac xagga iyo siyaasadda si xitaa tartan ay uga qayb ahaadaan calashaan tartanka inay qayb ka noqdaan la yiraahdo waxay yihiin raggaan way soo halgameen inay doorashadan ay wax badan ka soo qabteen doorashadan ay wax badan ka soo suubeen kaliya intaas ay doonayaan waxa la yaab leh nin doorashadii hore la soo dhaafay 2 cod helay ayaa maanta wuxuu doonayaa wali inuu heli karo 5 cod ayuu ku doodayaa waa hada aragtida iyo qofka wuxuu aaminsan yahay aniga ka hadlaya waxay tahay waa qaabkaasi okay marka qodobka ugu dambeeyay aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay damaca lagu doonayo dhisida golahani ayaan rabo inaan ku dul istaajiyo muxuu yahay waa mid ay isweydiinayso waxa lagu raadinayo ayaa in lagu helo macnaha ayna damaanad qaas siyaasadeed waxa arinka lagu raadina waxay tahay xildhibaanada qaar ayaa waxay raadinayaan damaanad qaad siyaasadeed oo ah in la yiraahdo xildhibaan hebel adaa lagu siinayaa doorashadan ka foq xildhibaan hebel adaa lagu qoray doorashadan ka foq waa habka iyaga ay doonayaan ragga maanta doorashada diidka ah waay aniga waxaan ka hadlaa wax kale ma aha golahan la dhisaayo dadka lagu qalgalinaya laakiin qalbi ahaan marka aad fiiriso waa rag damac kale ta leh damac adiga aad filayso iyo qaabka adiga aad filayso qaab ka duwan ayay doonayaan raggaasi okay marka golaha macnaha golaha hadda la doonayo in la dhiso oo lagu qalgalinayo amniga caasimadda golaha waa madadaalo siyaasadeed iyadoo oo lagu raadinayo kuraas si loo boobo waa madadaalo siyaasadeed dadka waxaa lagu madadaalinaya golahana dhisayna wada tashi bulshada shacabka isku keenaysa maxay tahay amnigooda qalqalgelinaysa bulshada shacabka isku keenaysa maxay tahay doorasho diida tahay nin doorasho diid ah sidoo bulsho iskugu keeni kara sidoo raba marka fikirka bulshada inuu dhageysto isaga loo dhageysto sidoo ku doonaya kaliya waxa lagu doonaya waxay tahay tusaale maanta idin kugu filnaato Sheikh Somo wuxuu si cad u diiday ama kaga soo horjeestay in maanta la soobiyo in wax muran keeni karo in lagu dhaqaaqo doorasho muran keeni karta in lagu dhaqaaqo fal amni oo qalqal gali karto amniga caasimadda dadka qaar damiirkaas ay leeyihiin waxayna ogsoon yihiin maanta hadii la isku dayo in doorashadan laga soo horjeedo Dr. Maxamed Xuseen hogaaminayo wallahi waxa ka dhalan kara ay wuxuu og yihiin in dhibaato ka duwan dhibaatada taagan ka dhalan karto laakiinse raggaan isku daya inay golo soobiyaan oo ugu horeeyo 2 nin ayaa ugu horeyso waa Xasan Sheekh Maxamuud oo qaab ahaan niid ahaan dhintay iyo Cabdiraxmaan Shakuur oo doonaya magac siyaasad inuu soobiyo kaliya waa intaas nin dhan oo doonaya musharax madaxweyne ah raadinayo inuu magac siyaasadeed bis soobiyo waa macnaha waa waxa kaliya aan ka barana maanta marka qodobka xiga waxa ay doonayaan golahaani macnaha waa muddo kordhin si ay u helaan xal ku saabsan xildhibaanada soo baxay ama soo bixi doona iyo inta ka maqan si ay lacag ugu raadsadaan lacagtaasi hadda ma heesaan wax ay ku tartamaan doorashadan dadban hadda maqasho codkana lehi lacagtana qaadasho ay leedahay lacagtana qaadasho codkana aniga lehi waa habka doorashadan lagu magac daro waa doorashada dadban hadda maqasho waa qaabkaasi marka waxbaha isku shideelin waxbaha isku murjinin doorashadan waa doorasho lacag lagu qaato doorashadan waa doorasho dadban qof kasta qofkii calaf la horta uu soo baxaya cid ka hor istaagi karta ma lahan laakiin dadka qaar waxay iska dhacsiiyeen doorashada haddaad golo soo bisaan calashaan waxa heli kartaan taageero ayaa heli kartaan taageero gudaha ayaa heli kartaan horta taageero caalami iska daa wax soo farageli karo doorashadan ka socoto Muqdisho haba yaraatee ma jirto Soomaaliya gabi ahaanba Soomaaliya ayaan ka hadlayaa qof soo farageli karto ee ka hadli karta arrimahan doorashada socoto oo beesha caalamka ahne ma jirto haba yaraatee laakiinse arinka ugu muhiimsan ee taagan waxay tahay raggaan waxay raadinayaan waxa waaye waa xildhibaano ay raadinayaan waxay raadinayaan waxa waaye xildhibaanada soo bixi doonto lacagtii ay ku macnaha ku sii lahaayeen inay u codeeyaan ay meel ka keenaan ay leeyihiin marka qaab walba ay ku keenaan waxay doonayaan waxay tahay waa muddo kordhin dadban ay doonayaan waa shalay waxay ku doodayeen ee kaga soo horjeedeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay ahayd muddo kordhin ay ka soo horjeedeen oo ah doorasho in la gaarsiyo qof iyo dalkaani sababtoo ah maadaama ay diideen maamul goboleedyada qaar in doorasho dadban la aado waa in dalka la geeyaa doorasho qof iyo cod ah laakiin iyagii marka waxay u arkeen dana siyaasadeed ay waxay ka dhaarkeen labada maamul goboleed ee dawladda ka soo horjeedo oo fiirsa marka maanta garbahooda ay ka maqan yihiin xogta ugu muhiimsan aan ku siinaa waxay tahay maanta warqad waxa soo saaray guddiga doorashada ayaa warqad soo saartay guddiga doorashada ee warqada soo saartay
waxaa war saxaafada ay soo saarto oo ah in doorashada degdeg lagu qabto labada maamul goboleed saddex maamul goboleed ay xooga saartay waa Hirshabelle waa Jubbaland waa Puntland ay xoog iskugu geysay markay intaas hadalkaas iskugu geyso doorashada inay degdeg ku qabtaan maadaama xildhibaano hore la doortay ay jiraan inay doorashada qabtaan hadda ila xoogalan helay waxa kamid ah Jubbaland caawa ama bari waxay soo saari doonaan xildhibaanadii ugu horeysay ee golaha shacabka ee lagu dooran doono magaalo madaxda Kismaayo ayay doonayaan maanta ay ka shaqeynayaan ilaan fariin ayaa waxa ka soo baxday maamul guddiga doorashada oo ah in doorashada ay qabtaan maamul goboleedyadii u harsan in doorashadan la dedejiyo maadaama waqtigii loogu talagalay oo soo dhow yahay waa in at least hataa ku dhawaad 100 xildhibaan la heli kara haddii la helo 100 xildhibaan hadii waxay fududeynaysaa xildhibaanada ilaan waxa laga rabaa moogta golaha shacabka 270 xildhibaan la rabaa waxa maanta la doortay waa 24 xildhibaan ayaa la doortay 24taas xildhibaan 36 xildhibaan ayaa la doortay intaas marka waxa dhiman wali wax badan ayaa dhiman haddii saddexda maamul goboleed ee soo saaraan in ka badan 24 ama 30 in ka badan soo saaraan doorashada marka way sii soconaysaa raggaani marka si kasta u qaqeeliyaan waxa qasab ah in loo istaagin رئيسار محمد حسين روبلي waxa garbihiisa taagan waa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xasan cali qeere waa dadka doonaya doorasho inay dhacdo dadka aan doorasho doonin hadda waxay ku mashquulsan yihiin gol dhisid waxay ku mashquulsan yihiin hal fariin raaw inaan inta ka gudbiyo fariintaas waxay tahay xal warqada ay soo saaray ragga qaar ee musharaxiinta ah ee doonaya inay suubiyaan golo gaar ah ee doonayaan inay ku shiriyaan amniga u fiirsan markay ay ku leeyihiin shirkaasi ayna suubinayno amniga waxaan u xil saarnay rag gaar ayaan u xil saarnay amnigooda anaka suganayna dhixin waxay damacsan yihiin waxa waaye waxa waji laga sii suubisanaya waa ciidan ayaa waji laga suubisanaya si loo dhaho waxa laga hor istaaga doorashadii in macnaha waxa laga hor istaagay inay shir qabsadaan mucaaradkii because of that markii waxay doonayaan waxa waaye in shir la suubiyo shirka markii la suubiyo dagaal markii lagu soo qaado arkaan inay yiraahdaan doorashadana diidnay doorashadana ka dhacna laakiin raggii hogaamin lahayd arinkaani halkaas ay kaga bixeen waa shariif oo ah nik kaliya ee kala wadi kara mucaaradka maskax haday noqoto haday dagaal noqoto haday wax walba suubiso laakiin idinku waxa idinka qarsoon maxay tahay kala furfurkan iyo kala irdeentan calasha inay kala fogaadaan mucaaradka maxaa sabab u ah su'aashaasi waxa ay tahay waxa sabab u ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo kala diray habkay isku ahaayeen kala fogeeyay ragna inay doorasho doonaan ragna inay diidaan doorashada gacantooda loo soo geliyo at least xitaa maamulkooda qayb ka noqdaan laakiin ragga qaar ee isku kalsoon maanta la ogaaday runtan loo sheegay la yiri doorasho doon ma tahay ha gooni kaga bax raggaani sababta raggaani magaciina ay ku ciyaarayaan magacaaga ay dilayaan magacaaga ay hoos u dhigayaan hadhooti inaad dad hogaamisaan way adkaanaysaa bal gooni uga baxa waa habka macnaha la doonay in lagu bedelo lagu kala fogeeyo waa qaabkaasi marka si kasto la isku tago si kasto dadka la isku shiriyo waxa qasab ah in la idin kala diree inaad reeyalo dalkan doorasho ayuu aaday doorashadan waa doorasho dadban shalay idinka ayaa u qeylinaya shalay idinka u qeylo dhaaminaya dulqaadkeeda lahaada waa halkaas marka doorasho maanta ay taagantaa waa qaabkaas ee doorashada u socoto marka dadka doorasho diidka ahne dadka dhan ayaa wada og dadka aan doorasho rabin dadka dhan ayaa wada og laakiin fariinta aan raba inaan u gudbiyo waxay tahay ragga mucaaradka haddii aad isku daydaan inaad qalqal gelisaan amniga caasimadda waxaad ogaataan isbuucan waxa soo socdo waa ciidankii electric lagu soo tababaray oo haysta hubkii ugu dambeeyay oo haysta tababarkii ugu casirsanay haddii aad dhaqdhaqaaq isku subisaan hadda waxaa ogaataan rag aanan qoslin oo aan jixin oo haddii si kasta la yeelo oo aanan xataa lici karin ayaa soo socdee dulqaadkeeda yeeshta mucaarado haddii aad fal isku daydaan oo qalqal geli kara amniga caasimadana haddii xaqiina ama waajibaadkiina ayaa la idin gosiin in adeerayaalo doorashadan usoo diyaar garooba dalka doorasho ayuu aaday dalka hadda doorasho diyaar u tihiin haddii amniga doorashada iyo isbedelka doorashada diyaar u tihiin hadda halkaas doorashada yaala
xildhibaanada aad ku doodaysaan oo ugu horeeya professor Jawaari hadda kursigiisa tolkiisa ayaa u soo diiday maadaama tolkiisa u soo diideen idinka marka waxaad u aragtaan meeshaasi inaad ka aragtaan siyaasad ahaan inaad dana siyaasad ka leedihiin oo ah ninkan hadda idin soo baxo at least xitaa xildhibaanada baarlamaanka ayuu wuxuu isku keeni karaa meel doorashadii ayuu wax ka bedeli karaa qaabkiina ayuu wax ka bedeli karaa laakiin habka aad filaysaan kuma dhici doontay hab ka duwan ay doorasho u socotaa doorashadan waa doorasho dadban qofkii nasiib u yeeshta ayaa heli doona qofkaan nasiib u lahayn hadda ma heli doono insha Allah du'aalidmo marka waxaad ogaataan dalkani doorasho ayuu aaday doorasho u soo diyaar garooba raggan doorashada diyaar u ahayn hadda waa la yaqaana siyaasadda waxay ugu jiraan waa muufaysi oo kaliya ma ahan in siyaasadda hami kale yihiin siyaasadda waxay ku joogaan muufaysi halkay lacag ka raadiyaan ama lacag ay ka doonaan inay ka heli karaan ay moodaan laakiinse waa laga gudba dalkani wuxuu u gudbay doorasho dadban qofkii u helan nasiib ayaa soo bixi doono waa kalsooni hadad maqashaan waa Shariif iyo Xasan Cali Kheyre dadkaas tusaalaha idin kugu filnaadaan mucaaradow habka aad doonaysaan doorasho uma dhici doonte hab kale ay u socotaa maamul doorasho ah qayb ka tihiin ma dhici doonto halka aad farmaajo shal u diideen ayaa idinkana ka istaagi doontaan doorasho inaad qayb ka noqotaan never ever ma dhici doonto marka waxaan idinka codsanayaa fadlan dhamaanteen inaad barnaamijkan la gareysaan waxay ii tahay dhiiranaan sidoo kale inaad sii share gareysaan loo saaxiibadana kaleetana xogtiina habeenkaas idin soo gudbiyo oo aan sida saxda ah siyaasiyan ku haboon aan idin kula hadli doono hadda alid insha Allah halkan ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka ugu talgalay xogta ugu dambeysay halkan idin kugu soo gudbiyay falanqaynta siyaasadeed oo aad ku maasantii daawashadiina السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته